13 bishii December ee sanadkii galbaday ee 2017 waxa hogaaminta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland loo dhaariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu 50% ku guuleystay doorashadii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday 13 bishii November ee isla sanadka ummadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaaday tallaabooyin kor loogu qaadayo arrimaha bulshada iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saddex dhacdo ayaynu warbixinteenan ku eegaynaa oo qulubta shacbiga reer Soomaaliland saameyn kaga tagay oo uu qaaday madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shacbi weynaha reer Soomaaliland ayaa la dhacay tallaabooyin uguba oo uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuwaas oo taabtay qulubta shacbiga reer Soomaaliland waxaanay kala ahaayeen soo celinta hanti ay dawladdu leedahay oo gacanta ugu jiray markii hore shirkada gaar loo leeyahay oo gurmashada bulshada ku tabaalowday duufaanadii xeebaha Soomaaliland ku habsaday iyo guura habeenimo oo madaxweynuhu ugu tagay qoys laba ubadi ay kaga geeriyoodeen roobab xooggan oo Hargeysa ka da'ay bishii Abriil 30keedii sanadka 2018 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa guura habeenimo ugu tagay qoys danyara oo laba caruur ay kaga geeriyoodeen roobab xooggan oo caasimadda Hargeysa ka da'ay waxaanu madaxweynuhu dareenkooda la qaybsaday qoyskan masiibadu ku habsatay gurmada waynu geli ka maqan geeri iyo nolol waynu geli gurmad wixii qadar dhacayna wixii dhibaatay masiibo dhacday oo lagu wadaay oo qarankaaga waa kula jooga oo gurmad soo kala isku yimaado calaamadaha gumba loo baahay iyo sabir iyo tala dambe oo wixii ay kala qaran ahaan lagu wato nacam isla maalintii xigtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa taageero dhaqaale u fidiyay qoyskan ubadkoodii ku waayay daadadkii ka dhashay roobabkii Hargeysa ka curtay isagoo madaxweynuhu aabaha qoyska ku qaabilay qasriga Jamhuuriyadda Soomaaliland looga arrimiyo Axmed Qorone aabaha qoyska ayaa dareenkiisa cabiray markii uu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland waxaan maanta isoo gaaday anigu aan ogaaday in aan leeyahay qaran Soomaaliland la yiraahdo oo jira madaxweyne wax ku tari kara oo daacada sida dadamiska dabka u soo gaadho ayuu degdeg ugu soo gaaray isla habeenkii wasiibadan dhacday bishii May 24keedii sanadka 2018 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safar dhinaca cirka ugu kactimay deegaanada xeebaha Soomaaliland oo ay ku dhufteen roobab xooggan oo dabaylo watay oo markii dambe isku bedelay duufaano waxaanu madaxweynuhu dareenkooda la qaybsaday shacbigiisa tabaalaysan isagoo gurmad gaarsiiyay hadal luxay qalbiyada reer Soomaaliland ayuu madaxweyne Biixi ka jeediyay deegaanadii duufaanadu haleeleen halkan darata markii la marayay waxa naloo sheegay qoys 12 qof oo inay ka haray inankii baan doonina hadii reerkoodii baxay qarankiisa baa jooga 25kii isla bishii May sanadka 2018 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wiil yar oo aabihii hooyadii iyo 6 ubada oo ay walaalahaayeen ay ku geeriyoodeen roobabkii ku dhuftay xeebaha Soomaaliland qaranka Soomaaliland ayaa nolosha wiilka yar kafaalo qaatay waxay ahayd tallaabo uu qaaday madaxweynaha Soomaaliland oo shacbiga reer Soomaaliland saameyn kaga tagtay waalidku meesha ka baxayna tolka oo qarankaaga yeesho Soomaali oo dhanba nin wala bes joogaba halbisa ka saaray oo kula qaybsanaya waxa dhacay halkii waalidku inuu soo celin karto abiyo hooyo wala idin bixi karamayso laakiin Soomaaliland ma ku dareemsataa hadii la yiraahdo Soomaaliland ba hawshaada halkii intii waad ku tarihi lama helayo ugu bixi karo laakiin wala ugu dadaalay in aadiyaad reelkaaga waxbarashada iyo noloshaada qaranka ka faqaaday bishan August 12keedii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne dib gacanta dawladda ugu soo celiyay hanti ay dawladdu lahayd oo maamulkeeda markii hore ay gacanta ku hayeen shirkada gaar loo leeyahay hantidaas oo kala ahayd haamaha kaydka shidaalka qaranka ee Berbera
ammaanka madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport iyo goobaha la dhigta gaadiidka ee loo yaqaan baarkinka ee madaarka caasimadda Hargeysa. saddexdan tallaabo ee aynu ku eegnay warbixinteennan ee uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ahaa kuwo luxay qulubta shacbiga reer Somaliland dareen gooniyana u sameeyay maadaama ay garowsadeen inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland la dareen yahay shacbigiisa xaalad kastoo ay ku sugan yihiin uu og yahay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Hargeysa.